السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada walaalayaal channelkayga. Maanta waxaan ka hadli doonaa qisadii gabadhii Blanche Monnier ee galgashay Paris. Waqtigu markuu ahaa 23 March sanadkii 1901 waraaqad aan la garanayn cidda soo dirtay ayaa soo gaartay xafiiska dowladda hoose ee Paris. Waxaana ku qornaa erayadan: mudane, waxaan ka hadlayaa gabar xabsi guriyeed ku jirta guriga reer Monnier. Gabadhaas oo nolol xun ku nool, kaajaysan, guri wasaq ahna ku nool. Markuu ninkii meesha xafiiska dowladda joogay aqriyay waraaqada, wuu rumaysan waayay erayadan ku qoran waraaqada. Sababtoo ah Marwo Monnier waxay ka mid ahayd dadkii Paris magaca iyo hantidaba ku lahaa. Ninkeedana Amiel Monnier wuxuu ahaa nin dowladda u shaqeeya intuusan iman ka hor. Wiilkeeda Marciel wuxuu ahaa nin xuquuqda dadka u doodo oo bulshada dhexdeeda ixtiraam ku dhex leh. Qoyska reer Monnier waxay ahaayeen kuwo lagu daydo France dhexdeeda, laakiin waxyaabaha qoyskan lagula yaabo ayaa waxaa ka mid ahaa gabadhooda Blanche Monnier oo la waayay muddo dhan 25 sano. Qof deriska ka mid ah ama qof xaafadda ka mid ah aan arkin oo la lacsanaa. Markaas waxaa faaftay riwaayadda ah inay gabadhoodu wiil jeclaatay, qoyskoodana ay u diideen, sidaas daraadeedna ay wiilkii jecleed ay la fakatay gabadhooda. Qoyska reer Monnier naftooda maysan jecleen ka hadalka gabadhooda maqan, noloshooda iska wateen sidii inayba jirinba gabar ka maqan. Laakiin gabadhan keliya maysan ahayn waxyaabaha qoyskan lagula yaabo. Sanadaba waxaa jira sheekooyin iyo riwaayado laga sheegay inay ka dhacaan guriga weyn ee ay degan yihiin qoyskan reer Monnier. Gurigaas oo ku yaalo meelaha ugu qurxan Paris ee dadka lacagta leh ay degaan. Shaqaalaha iyo dadka u imaada iyo xataa deriska ayaa waxay ku dhaarteen inay maqleen qaylo cabsi leh oo guriga ka soo baxaysa la aqoonna meeshii guriga dhexdiisa qayladan ka soo baxayso. Sidaas ayaa dadka waxay u malayn jireen inay guriga jin iyo waxaasi ay ku jiraan. Waxaa bilaabatay inay askarta iyo warbaahinta hesho qisadii qarsoonayd ee gabadhii Blanche Monnier. Bilowgeeda qisadan wuxuu u noqonayaa qarnigii 8aad 1875 waqtigaas oo Blanche Monnier la nooleed ayeedeed oo ahayd islaan fiican oo aad u jecel gabadha ay ayeeyda u tahay. Waxay uga dhaweyd xataa hooyadeed ayadaas soo korsatay. Waqtigaas ayay nolosheeda ugu farxad badneed Blanche Monnier, iyadoo ahayd waqtigaas gabar qurux badan oo lagu tilmaamo gabdhaha ugu quruxda badan Paris, oo dhalinyaro ah, oo timo waxay lahayd madow ah iyo indho qurqurxan oo buluug ah. Waxayna sidoo kale ahayd gabar caqli badan oo farxad badan. Waqtigaas ayay waxay jeclaatay nin ayada ka weyn ilaa 5 sano. Ayeedeedna raali ayay ugu noqotay inay jeclaato wiilkan. Ninkay jeclaatay muusan khiyaameen ee qoyskeeda hooyadeed ayuu ugu tegay toos. Wuxuu yidhi gabadhiina u baahanahay, laakiin waa loo diiday. Xataa uu ku noqday oo waa loo diiday. Sababtoo ah wiilku wuxuu ka soo jeedaa qoys faqiir ah, gabadhuna waxay ka soo jeeday qoys taajiriin ah oo lacag haysto saan soo sheegnay. Laakiin Blanche Monnier xiriirkeedii ayay la sii waday wiilkii si kastoo qoyskooda u diidaan. Markaas ayay qoyskeeda waxay bilaabeen inay u diidaan gabadhooda inay baxdo. Khaasatan ayeedeed markay dhimatay ayaa lagu adkeeyey Blanche Monnier. Maalin maalmaha ka mid ah hooyadeed ayaa waxay heshay waraaqado ay u tuuri jirtay wiilkii ay jecleed Blanche Monnier ay u tuuri jirtay. Waraaqadan ayaa waxay ku qorneyd erayadan inay gabadhooda fakan doonto oo ay wiilka ay la fakan doonto ayay ka ogaatay waraaqada hooyadeed. Hooyadeed ayaa arrintan ka xanaaqday oo weliba si aad uga xanaaqday. Markii arrinta hooyadeed ay ka xanaaqday ayay waxay go'aansatay ayada iyo wiilkeeda inay qolkeeda xabsi guri uga dhigaan
oo ay xataa u diidaan xataa inay darashada furto gabadhooda qol mugdi ah baa lagu xiray gabadhooda ayaa bariday qoyskeeda laakiin qalbiyadooda waxay ahaayeen sida dhagaxaan looma naxariisanin Blanche Monnier wixii waqtigaas ka dambeeyay gabadha waxa ku dhacay ayaa wargeyska Times wuxuu ku tilmaamay sida tan waqtiga ayaa socday dhaqso Blanche dhalinyaranimo way ka gudubtay ninkay jeclaatayna wuu dhintay sanadkii 1885 waqtigaasoo dhan Blanche qolkii ayay ku xabisneed waxay cuni jirtay cuntada la soo reebo iyadii jiirka anis waxay ku nooleed qol mugdi ah allah unbaa og wixii dhib ay martay maskiintaas keligeed intaasoo sano walaalkeed Marciel ayaa wuxuu sheegay markii dambe in walaashiis ay maskax ahaan u xanuunsatay markuu xafiiska dowladda warasaan soo sheegnay xafiiska dowladda ee waraaqadii gaartay shaki ayaa ku dhashay oo arrintii in la baaro ayaa la go'aansaday mas'uulka xafiiska ayaa wuxuu go'aansaday inuu arrintii baaro dad badan ayaa waxay qireen in ay maqleen hadallo qof haween ah oo dhahayso in naxariista dowladii aaway askar ma jirto miya sidaas ayuu wuxuu go'aansaday inuu diro askar soo xaqiijiso inay arrintan run tahay askartii ayaa albaabka gurigii reer Monnier soo qaraacay guriga ayaa baaritaan ugu dhaqaaqeen say u baarayeen guriga ayaa waxay arkeen qol kor ku yaalo oo xiran qufulkii ayay weydiiyeen shaqaalaha waa la waayay markii dambe ayaa la yidhi waa la helay mase waaba qol mugdi ah oo uraayo askartii markay dirishadaha fureen oo qolkii ay soo gashay iftiinka uu soo galay askartii baa qolkii galay qolkii markii mugdi buu ahaa uu jiirayay qolkii markii soo galay iftiinkii waxay arkeen qof haween ah oo qaawan ee timaha ku baxeen lafa ah markii dambe ayaa waxaa la ogaaday qoftaan inay tahay Blanche Monnier gabadhii loo haystay inay luntay 25 sano ka hor markiiba askartii waxay u direen isbitaalka markii ugu horreeyay oo loo qabay Blanche aad bay u faraxday dhaqaatiirtii ayaa waxay ku tilmaameen gabadhaan inay ahayd qof miskiin ah oo aan hadlayninbo markii la weydiiyey see tahay waxay tiri waan faraxsanahay laakiin indhaheeda waxaa u darnaa shucaaca qoraxda ma arki karin hooyadeed waqtigaas kamay baqasneen guriga fadhiga weyn ee iska fadhiday dan kamay lahayn waxa gabadheeda ku dhacay iyo wax kale saxiifadda weyn markii lagu soo qoray ee Paris markii lagu soo qoray qisadeedii ayaa France oo dhan gilgilatay sawirkeeda oo u eg qof dhimanayo oo fool xun ayaa dadkii oo dhan saameeyay qisadeedii waxaana dadkii reer Paris ay dalbadeen in hooyadeed iyo intii ka dambeysay waxa lagu gabadhan dhibaatadeeda in xabsi loo diro hooyadeed iyo walaalkeed ayaa xabsi loo diray walaalkeed 12 bilood ay xabsiga ku jiray hooyadeedna way ku dhimatay xabsigii markii u dambeysay oo dhimanaysay ayaa waxa lagu tilmaamay in hooyadeedii linka soo daadatay ilin beenaad ma dhikarne oo ay tiri gabadhaydii miskiinta ahayd Blanche Monnier marka qisadan walaal waxayna faa'iideynaysaa in muxuu ahaayay gabdhaha qisadan Yurub ayay ka dhacday qarniyadii hore ayay ka dhacday Yurub hadda sida ma ahan gabdhaha badanaa xuquuq ay leeyihiin laakiin qisadan waa hore ay Yurub ka dhacday Yurub anaga say dadka kale hadda bulshooyinka kale u dambeeyaan way soo dambeyn jirtay qisooyin noocyadaan oo fara badan baa ka dhici jiray ana waa aaminsanahay hadda in Soomaaliya waxaan oo kale ka dhacaan ama wadamo badan ay ka dhacaan waxaan oo kale marka qisadan waxay noo faa'iideynaysaa in qofka la dulminin oo la iska ilaaliyo dulmiga waxay kale sheegaysaa in qoyska xataa uu wax dulmin karo qoyskaada ugu dib badanta markuu qoyskaada uu ka qayb qaato dulmiga lagu hayo assalaamu calaykum walaalayaal subscribe isaara insha allah channelkii qisooyin fara badan
waad jeclaataan baan soo gudbin doonaa. Maca salaama.